عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ورنسو عائشة رضي الله عنها رسولك صلى الله عليه وسلم أي كورنسو أيا وحولي رسولك صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن قفك قرآن كأخرنيا وهو ماهر به أو ولب كد ذاليا أو حريف كواه قفك قرآن كأخرنيا ولب قفكاسو وحريف كويهي مع السفرة الكرام البررة ملائكة ونكسن أيو مقرنا سامعي سيهي وقفك معناها قرآن ككد ذاله أخرية ملائك بلا أخرنسا والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه قفكي قرآن كأخرنيا يجتبينيا يتتعتع وحوي وقفك كل علنيا حرف خلطيا أي حرف كعلنيا أي كد ذاليا إنه مقرنسا صحو قفكاس وهو عليه شاق له أجران ولبا قرآنك وكو أذيهي ونو كو أذيهي ونو برنيا قفكاس أجران أيا أسقن النبي صلى الله عليه وسلم وحكشي كي لوقف وقفكي قرآنك برني ولبدرجو مريا المهم لبدرجو ومريو حديثك رسولك صلى الله عليه وسلم أيا لو شيء إن قرآنك marka hore aad doonaysi inaad baratid waxa weeye waa darajada koowaad baa maraysa oo ah in quraanka aad wax khaladid waxna saxdid aad ku soo celcelisid sidaas aad u wadid darajo labaadna waxa weeye waa qofkii darajada koowaad ka baxay ee quraanka sidoo u saxayay markii dambana xariif quraankii uu ku noqday marka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri alladhi yaqra'u alquran wa huwa maahirun bihi qofka quraanka akhrinaya ee waliba xariifka ku ah ee quraanka bartay ee laftigiisi iyo alfaadiisi iyo wixiisi oo dhan iyo tawjiidkiisi oo dhan saxay waa qofkaas ma'a safarati alkiram albarara malaa'iktaas wanaagsan ee quraanka qofku markuu akhriyo soo xaadirta ee dhikriga Ilaahi subhanahu wa ta'ala timaata qofkaas way u imanaysaa sababta ah quraankii ma khaldayo uu hagaajinaya laakiinse qofka labaad ee ah walladii yaqra'u alqur'aan wa yata'ta'u fihi qofka labaad ee ah qofkii quraankii ku dadaalayay waxna khaldayay waxna saxayay ee quraankii baranayay qofkaas wuxuu leeyahay laba ajar laakiin qofkaas malaa'iktu uma imanayso sababta ah malaa'iktu waxay u timaadaa ama ay la akhrisaa qofka quraankii saxaya ay iyaduna quraankii ay ku raaxaysanaysaa oo magaranaysa quraankii baa ku soconaya oo ku baxaya maxaa yeelay laakiin qofka quraanka hadir baranaya ee magaranaysa meesha raaxa ma jirto ee qofkii quraankii buu khaldayaaba wax badan buu khaldayaa oo una saxaya markaana darajada koowaad waxa weeye waa darajadan qofku uu quraanka khaldayo darajada labaadna waxa weeye waa darajadan qofkii oo magaranaysa quraankii xariif oo ku yahay markaana waxa weeye marwaliba quraanku labada darajood uu leeyahay waxa la doonayaa qofku quraankii uu ku adag yahay oo quraanku uu aad iyo aad u dhibayo ku soo celcelinayo qofkaas waxaan ku leenahay qofkaas xaqoosan oo quraanka akhriso oo ku celceli oo sida u sax laba ajar baad leedahay qofkii kale Ilaahi subhanahu wa ta'ala quraanka baray ee uu u fuudeeyay qofkaas oo soo dhaafay darajadii koowaad darajadii dhibaatada badnayd oo ah quraanka inaad khaladid in aad baratid inaad wax garan weydid in ma garanaysa aad dhibaato badan u soo martid qofkaasna waxaanu leenahay quraanka Ilaahi subhanahu wa ta'ala wuu ku siiyay oo ku fuudeeyay dhibaato badan baa u soo martay quraanka ha iska dayicin hadar ina ku dadaasho iyo markii koowaad ina ku dadaasho waxa ku fudud ina hadar ku dadaasho mar hadii dadaalkii koowaad aad soo martay dadaalkii weynaa aad soo martay oo ahaa quraanka ina ku soo celiso dadaalka kale ee yar ee labaad ee fudud ma garanaysa hadayicin ee quraanka akhriso oo ku celceli nabiga sallallahu alayhi wasallam حديث كله ورنيو وحليه عن أبي موسى
الأشعري وكورني رسول الله صلى الله عليه وسلم حليه مثل الذي يقرأ القرآن قفك قرآنك أخريه وحولي لمديهي مثل الأترجة سيدا جيت أترجة لده ريحها طيب وطعمها طيب udgoon keedu iyo urteedu waa udgoon urta ay leedahay geedkaas urtu leeyahay waa udgoon dhadhankiisuna waa macaan ومثل المؤمن مؤمنك الذي لا يقرأ القرآن كاسو قرآن كأن أخرين كمثل التمرة وسيدي تمرتي أو كلا لا ريح لها وطعمها حلو timirtaasu ur ma laha laakiinse dhadhankeedu waa macaan dhadhankeedu waa macaan ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن منافقي قرآن كأخرني مثل الريحانة وسيدي مقرنسا ريحانة أيو لمد يهي جيتك ريحها طيب urteeduna ma garanaysaa waa riixuhaa طيب urteedu way wanaagsan tahay wadacmuhaa mur dhadhankeeduna waa qadhaadh ومثل المنافق منافقة الذي لا يقرأ القرآن منافق عن قرآن كأخرين وكمثل الحنظلة وبحلم ذي سيدا جيدك ليس لها ريح وطعمها مر جيدك سو أنا لهين قرب ملها مد تقول يمد قلاد ملها مد أرسة مد قربون يمد تقولنا ملها لكن لدن كيدو وقلاد لدن كيدونا وقلاد النبي صلى الله عليه وسلم حديث كان وحديث آدي قالوه وحديث قالوه الحمد لله رب العالمين وحديث مقرنا ساترجمية أما شرحية أما شيء يقفك قرآن كأخرية يقفك عن القرآن كأخرين فرقك أي كيليين النبي صلى الله عليه وسلم وحوي يقفك قرآن كأخرية وحوي مؤمن كقرآن كأخرية وحوي ومؤمن مقرنا ساوحول من يهي جيت كأتروجة لده أتروجنا واجيت مقرنا سا إن أدقون وناكسن له مركا دمينا معان مركا قف كمؤمن كا وحوي مركا روا مؤمن وقف إيمان له وقف أخلاق وناكسن له هادو تنا وقدر سد القرآن كينو أخريه هادو تنا تعامل كيسي يتعامل كوكلا معاملون يكولا دقنك adiga uu kula dhaqmayo saaxiibkii kula dhaqanka uu kula dhaqmayo dariskiisa cadowgiisa dadka waaweyn dadka yar yar xaaskiisii qaraabadiisii waxaas oo dhan tacaamulka iyo dhaqanka uu kula dhaqmayo waxa weeye dhaqan wanaagsan ayuu noqonayaa markaana qofku hadduu quraanka akhriyo sidaas weeye وهدي القرآن كآخر التعامل مع الناس آيات أبرنسا وسيموناكسن آيات قرادق مسا وحوي مؤمنك عن القرآن كآخرين وسيدي تمرتو كلا أرملها تمرتو لكن ددن كيدو ومعايه تعاملك وكل معاملون يا أذيك مركلا دقنتيد ومناكسن يحي آيات ومناكسن يقفك مؤمنك عن القرآن كآخرين لكيسي حوغا فضائل فربضان أو دتك نحدقه ملها معناها قفك مؤمنك حديا أوتكتد أو لدقنتد لدقنك عاديك أو كل دقن مليون وهجاتشنيا لكن هدي وقدر صدق القرآن كأنه أخريه وحيانا يا فضائل عاديك أنا لدقن من قفكاس كسوجاريا فضائل وحياة وين ومدى وفائدين ومدى وصين ومدى يجو أينن لدقن من أيوليه sidaas ay u kala duwan yihiin laakiin si qofka quraanka aan akhriyin ee muuminka marka la dhaqantid ayaa ogaanaysaa qofkan inuu qof wanaagsan yahay ومثل المنافق منافق القرآن كأخرين النبي صلى الله عليه وسلم وحلم يهي
ريحانة ريحها طيب وطعمها مر مقرنة سات ددن كيدنا ويهي قداد urteeduna ay tahay wax wanaagsan maxaa yeelay dee munaafiqu awalba wuu xumaa waxaa laga yaabaa waxyaalo fara badan oo wanaagsan inay dadku ku arkaan waxaa laga yaabaa ma garanaysaa isagoo quraanka akhrinaya inay dad fara badan ku daydaan oo ay quraanka akhriyaan laakiinse markaa tacaamul la gashid ma garanaysaa qaraadkiisa iyo akhlaaq xumadiisa ayaa ogaanaysaa oo qofkii ay dhaqantid ومثل المنافق منافقي قرآن كأن آخرين جرينا وحوي واجد كحنطلال وين قرارية هاي أرتيس وين أرتيس وحنت هاي وموت جونا تدنكي سنة وقرارية مركانا كاسو حوي ومنافقي أصل كاي بلا عمل كا شنو عبد الله بن مسعود أما صحابي كالأولي هاي قفك قرآن كآخرية وبلا فائدة مقعد qofka quraanka akhriya faa'iido la'aan kama kaco oo haduu xun yahayna qofkii wuxuu u sheegaa inuu quraanka xun yahay uu u sheegaa qofkii waa qof ma garanaysaa masaajid soo galay oo waana qof u waaniyay oo kale maxaa yeelay quraanku wuu ku waaninaya hadii uu wacan yahayna ajar iyo wanaag iyo ma garanaysaa waxyaabihii laga heli jiray quraanka waxaas oo dhan ayuu ka helayaa